qaramada midoobay ayaa sheegtay inay Soomaaliya horumar weyn ka samaysay arrinta dayn cafinta iyadoo la sugayo go'aanka ugu dambeeya. James Swan, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya, ayaa ka hadlay arrimaha dayn cafinta Soomaaliya. Wuxuu sheegay inay qaramada midoobay ka go'an tahay inay ka jawaabto baahiyaha nafbadbaadinta degdegga ee Soomaaliya, sidoo kalena ay ka shaqaynayaan sidii ay u horumarin lahaayeen awoodda mustaqbalka ee Soomaaliya iyo inay Soomaaliya yeelato awoodda ay wax uga qaban karto shuruudaha ku xiran barnaamijka dalalka deymaha lagu leeyahay. Waa dalalka saboolka ah, barnaamijkaas oo la yidhaahdo HIBC. James Swan oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi, marka la eego baaxadda horumarka, dalalku waxay u baahan yihiin inay gaaraan waxa loogu yeero barta go'aanka, tallaabadaas oo lagu xaqiijiyo in waddanku u qalmo dayn cafinta iyo in xiriirka uu la leeyahay hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah si weyn dib loogu habeeyo. Soomaaliyana waxay heerkaas gaartay bishii Maarso ee sannadka 2020. Tallaabada labaad waxaa loo yaqaanaa barta dhammaystirka, oo ah in waddanku uu buuxiyo shuruudo gaar ah oo ay ku jiraan dib u habayno kadib marka uu helo dhimis daymeed oo buuxda. James Swan wuxuu intaas raaciyey in warbixinihii ugu dambeeyey ee ay bixiyeen saraakiisha IMF inay tilmaamayeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay sii wadayso dadaalada ku aadan geedi socodka dayn cafinta ee barnaamijka HIBC. Soomaaliya waxay ku dhowdahay bartii dhammaystirka daynta, waxayna u muuqataa mid ay macquul tahay in la gaaro dhammaadka 2023. Dhinaca kalena, James Swan ayaa sheegay inuu dhammaaday muddo xileedkiisii islamarkaana la beddeli doono oo qof kale booskiisa loo soo magacaabi doono. James Swan ayaa ahaa ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya 3 sano ee la soo dhaafay. Isagoo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi, waxaa xilkayga la wareegi doonta Anita Kiki oo haatan ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Anita Kiki waa diblomaasiyad 58 jir ah oo u dhalatay dalka Ghana, iyadoo arrintan ka hadlashay xilli wareegiddeeda iyo inay booska James Swan geli doonto. Waxa ay sheegtay inay Soomaaliya si weyn u taqaano maadaama ay sannado badan ka shaqaysay Soomaaliya. James Swan wax sharaxaada kama bixin sababta loo beddelayo, wuxuuna sheegay in haatan uu wanaagsan yahay xiriirka qaramada midoobay iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. James Swan ayaa xilka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya la wareegay 30 Maaj sanadii 2019, xilligaas oo uu beddelay Nicholas Haysom oo ay eriday dowladdii madaxweyne Farmaajo.